Waa deeq waxbarasho oo waddanka China ah. Wax walba ayagaa bixinaya laga soo bilaabo tikidhka diyaaradda aad ku raacayso ilaa kan aad ku soo noqonayso waddankaaga. Luqadda wax lagugu barayana ma ahan Chinese, waa English. Shahaado IELTS kuma weydiinayaan, wax kaliya lagaa rabo waa in aad jaamacadaadii hore aad wax ku soo baratay luqadda Englishka. Fadlan gaarsii muuqaalkani qof walba oo danaynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalkani waxa uu ka hadlayaa fursad waxbarasho oo waddanka dibaddiisa ah. Waa deeq waxbarasho oo waddanka China ah. Waxaad ka heli kartaa barteena internetka qanaadil.com. Marka aad gasho qanaadil.com waxaad aadaysaa qaybta blogga ama waxaad aadaysaa qaybta hoose halka ay ku qoran tahay faallooyin. Markaad ku sii dhufato waxaad arkaysaa halka aan soo dhigno deeqaha waxbarasho. Deeqdan waxbarasho ee lagu magacaabo Schwarzman oo ah waddanka China. Sanadkan soo socda ee 2025 ayay hadda sii xulanayaan ardayda ay qaadan lahaayeen Schwarzman Scholarship amaba waxay qaataan deeqdani waxbarasho ilaa 200 oo arday oo wadamada caalamka ka kala socda. Ardaydaasi waxay wax ku baran doonaan jaamacadda Tsinghua ee Beijing ku taala. Jaamacaddani waxay ka mid tahay jaamacadaha adduunka ugu sareeya, waxay number 1 ka gashay wadamada Asia gaar ahaan sanadihii lasoo dhaafay. Ardaydani waxaa si gaara loo bari doonaa culuumta la xiriirta siyaasadda, ganacsiga, hoggaanka iyo weliba tiknoolajiyadda. Halkan hoose ayaan ku xusay takhasusyada laga heli karo jaamacadda. Faahfaahin kooban haddaan idinka siiyo deeqdan waxbarasho, waxaa martigelinaya China. Deeqda waxaa bixinaya ururka loo yaqaano Schwarzman. Sidoo kale jaamacadda ardayda qaadanaysa ee jaamacaddu ay dhigan doonaan waxaa la yiraahdaa Tsinghua. Heerarka waxbarasho ee la qaadanayo waa master's degree oo 1 sano keliya ah. Muddadu waa 1 sano. English ayay ku baxaysaa. Dhammaan ardayda adduunka meel walba oo ay joogaanna waa la aqbalayaa. Shardiga ugu muhiimsan ee halkan ku xusan ayaa ah in ardaygu da'diisu aysan ka badan 28 jir. Xilliga kama dambaysta ee codsiga qaadanayaana waa September 12 oo ah sanadkan. Deeqdan waxbarasho waxay daboolaysaa fee-ga jaamacadda halkii uu degi lahaa ardayga, in waddanka dhexdiisa uu ku dalxiiso ardayga uu soo kala barto dhaqamada iyo waxyaabihii la xiriira. Sidoo kale ardayga inuu ka yimaado waddankiisa uu yimaado Beijing oo caasimadda China. Qarashaadka waxaa bixinaya tikidhka deeqdan waxbarasho. Sidoo kale ardayga waxa uu helayaa health insurance amaba caymis caafimaad oo ah kaarka caafimaadka oo ah inuusan wax qarasho ku bixin inta uu joogo waddankaasi caafimaadkiisa. Sidoo kale ardaygu waxa uu helayaa qarash billa ah amaba mushaar billa ah oo loogu talagalay inuu ku maareeyo noloshiisa caadiga ah. Haddaba dukumentiyada looga baahan yahay ardayga xareysanaya scholarship-kan waxay kala yihiin inuu buuxiyo foomka scholarship-ka, in uu soo xaadiriyo bachelor transcript ama shahaadada natiijooyinka ee bachelorka uu soo dhameeyay. Sidoo kale waxaa looga baahan yahay ardayga inuu 3 warqad oo recommendation ka soo qaato lectureskii amaba goobtii uu ka shaqeeyo ama waxyaabihii la midka ah. Sidoo kale CV-giisa ayaa loo baahan yahay. 2 dokumentiyo ugu muhiimsan oo halkan ku qoran amaba 2 qormo ayaa laga doonayaa inuu ardayga qoro. Midda koowaad oo ah qofka leadership-kiisa amaba hoggaamintiisa sida ay tahay, iyo hadduu tusaalooyin keeni karo, hadduu wax hore usoo maareeyay, caqabadihii la soo kulmay iyo sida uu u maareyn karo arrimahani ayaa laga doonayaa inuu qormo kooban ka qoro. Sidoo kale statement of purpose waxay sheegaysaa ayadana qofka hamigiisa iyo sababta uu xareynayo iyo waxa uu ka faa'iidayo iyo waxa uu rabo. Waxyaabahaasi ayaa lagu qoraa. Muuqaal kooban oo introduction ah oo asaga uu istilmaamaya iyo qofka uu noocuu yahay asaga inuu soo duubo ayaa laga rabaa. Intaasi shardi haddaad soo buuxiso waxaad si toos ah ugu qalantaa in lagu aqbalo scholarship-kani. Sidoo kale hal qayb oo aan ka tegay oo aanan xusin ayaa ah in haddii luqadda Englishka aadan shahaado ka wadan
dhib ma lahan, balse waxaa lagaa doonayaa inaad kala timaado warqad caddaynaysa inaad bachelorkaagii aad kusoo qaadatay luqadda Englishka. Jaamacadaha dhammaan waa ay bixiyaan, halkii aad wax ka baratay bachelorka aad ka qaadatay ayaad kasoo qaadan karaysaa. Haddii aad doonayso inaad si toos ah u xareyso, halkan ayaad ku dhufanaysaa. Kadib waxa uu ku geynayaa website-ka rasmiga ah ee Schwarzman Schools amaba deeqda waxbarasho ee ay bixiyaan ururkan. Dhammaan waxyaabihii aan soo xusnay inta badan halkan ayay ku qoran yihiin. Haddii aad doonayso inaad xareyso adiga oo aanan dhammayn weli bachelorkaagii, waa aad samayn kartaa, waa aad xareyn kartaa. Waxa ay ku weydiinayaan keliya waa inaad soo gudbiso documenti caddaynaya darajaadkaadii amaba natiijooyinkaadii sanadihii lasoo dhaafay. Requirementska kale ee scholarship-kani halkan ayay ku cad yihiin sida idin muuqata, iyo process-ka loo xareynayo. Haddii aad doonayso full application instructions ayaad ku dhufanaysaa oo halkaasi ayaad ka raacaysaa waxyaabaha la doonayo dhammaan halkaasi ayay kugu cad yihiin. Waxaan rajaynayaa in ardayda Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan fursadaha noocan ah, sababtoo ah inta badan waddamadan Eeshiyaanka markaad timaado, ardayda Soomaalidu si aad ah ayay ugu yar yihiin. Dhammaan dadka doonaya inay xareeyaan fursadani, fadlan waxaan idin soo dirayaa linkiga. Waxaad soo qortaa keliya qaybta hoose link kusoo qor, waa ay kusoo gaari doonaan si automatic ah.